dowladda Soomaaliya ayaa gobolka Galgaduud kaga dhawaaqday dagaal ka dhana xarakada Al-Shabaab ee ku sugan halkaas. Ibrahim Bashka ayaa warkan sii dhameystiraya. iyadoo dhawaan la qaramiyay ciidamadii maamulka Ahlusunnah ee ku sugnaa deegaanada gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa tababar loogu furay xirada 12aad ee ciidanka maamulka dowlad goboleedka Galmudug. wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ku sugan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan kuwa jooga magaalada Dhuusamareeb loo diyaariyay inay Al-Shabaab ay ka saaraan degmooyinka ay ka maamulaan gobolada bartamaha Soomaaliya sida uu sheegay wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale. sidoo kale wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan Al-Shabaab ay ka xureen doonaan 4 degmo oo ka tirsan gobolada bartamaha Soomaaliya oo uu sheegay in Al-Shabaabku ay ka saarayaan oo deegaanadaas ku sugan. wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa hadalkiisa imaanaya iyadoo dagaalyahanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin degmooyin ka tirsan gobolada koonfurta gobolada bartamaha Soomaaliya. Waasan Ibrahim. faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhexmaray saaka duleedka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. dagaalkan ayaa imaaday kadib markii dagaalamayaal ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay saldhigga ciidamada militariga dowladda ku leeyihiin magaalada Jowhar duleedkeeda. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaas Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhexmaray saldhiggaas la weeraray. dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijinaya ama ka agdhow halkaas in ay maqlayeen rasaas xoogan oo ay dhinacyadu isweedaarsanayeen. ilaa iyo hadda dhinacyadii dagaalamay wax war ah oo ka soo baxay ma jirto. xiriir aan la sameynay maamulka Hirshabeelle gaar ahaan kan Jowhar wax faahfaahin ah kama helin. wixii warar ka soo kordha bartaan internetka ku leenahay radio dalsan.com ayaad kala socon kartaan insha Allah. wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in dadka ku hadla lahjada Mayga aysan Al-Shabaab ahayn. Ugaas Xasan wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka qayb galayay shirka wasaaradaha warfaafinta maamulada iyo kan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, salaadiin waxgarad culimo iyo madaxda warbaahinta gaarka loo leeyahay oo shalay ku dhexmaray magaalada Muqdisho ayaa waxay kulankooda kaga hadleen sidii bulshada loo wacyigelin lahaa si dowladnimada loo taageero. wasiir Ugaas Xasan oo ah wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dadka ku hadla lahjada Mayga Al-Shabaab la oran karin. waxaan waliba dareemaynaa ninka luqadda Mayga ku hadlayo oo shabaabka arxan laawaha oo dhibaatada u geysanaya dadka Soomaaliyeed marka warbixinta laga soo sameeyo ama uu sheegto inuu ka yimid gobolada Koonfur Galbeed oo luqadda Mayga majority-ga dadka degan ku hadlaan in markiiba loo saarinayo dadka reer Koonfur Galbeed oo luqadda Mayga ku hadlay inay gidigood wada shabaab yihiin. waa dhibaato anagu aan oo aan sheegi doono oo aan waliba leenahay cid kastoo soo diyaarinaysa barnaamijkaas luqadda iyo shabaabka in la kala saaro. anuu nin maayaan ahay luqaddaasaan ku hadlaa. ninka shabaabka oo dambiilaha luqad ma laha dinbugu dalkan ka galay laakiin in loo saariyo la yiraahdo cid kastoo luqadda Mayga ku hadlayso marka ay dambi geysato kulli waa wada shabaab waan haysataa waana ka wada hadli doonaa. dhacdana warbaahinta madaxa bannaan ma qarin karto way sheegaysaa laakiin inta badan waxa laga yaabaa mararka qaarkood in dad dhalinyaro ah maadaama ay saxaafadda ka wada buuxaan oo helinta dalka iyo horumarinta dalka ayna door muhiim siinayna marka in wax la iswaraysto maxaa naga khaldan la yiraahdo wadankan doorka uu nooga aadan warbaahin ahaan muxuu yahay siraado la isweydiiyo waa muhiim. waana qabnaa in la wada hadlo la wada tashto la isdaliilo kadibna la yiraahdo maxaa inooga aadan ka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan. wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan ayuu kaasi ahaa. ciidamada nabad sugidda maamulka Jubbaland waad maqli doontaan qodobkaas hadii Allah uu yiraahdo. isla wararka Jubbooyinka ayaan ku jirnaa. guddoonka baarlamaanka Jubbaland ayaa go'aamiyay waqtiga ay dhacayso doorashada madaxweynaha maamulkaas
waa kan Washington. magaalada Kismaayo ee caasimadda ku-meel gaarku ah dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa kulan ku yeeshay guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland iyo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka maamulkaas. kulanka ayaa waxa uu ahaa mid isxog wareysi ah isla markaana waxaa aad loogu falaqeeyay arrimaha doorashooyinka iyo howlaha u qabsoomay guddiga doorashada iyo weli caqabadaha haysta guddiga. war-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland iyo guddiga doorashada Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in si rasmi ah guddoonka uu la wareegay hanaanka howlaha qabsoomida arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. guddiga doorashada waa guddiga cusub ee guddoonka baarlamaanka Jubbaland ayaa shaaciyay in doorashada madaxweynaha Jubbaland la qaban doono 22 bisha 8 2019 oo ku beegan maalinimada Khamiista soo socota, waxaana go'aankaas u yimid kadib markii ay beesha caalamka codsatay in doorashada dib loo dhigo isla markaana si rasmi ah guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland lagu wareejiyo hanaanka iyo habsami socodka doorashada madaxweynaha Jubbaland. waxaana guddiga doorashada ay si rasmi ah ay ugu wareejiyeen maamulka doorashada madaxweynaha Jubbaland guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland oo dhawaan lagu doortay magaalada Kismaayo. aad baad u mahadsan tahay Washington. weli waxaad maqlaysaan wararka subaxnimo dalsan Muqdisho. ciidamada nabad sugidda maamulka Jubbaland ayaa rag al-shabaab ah ku soo qabtay howlgal ay ka sameeyeen gobolka Gado, sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Xuseen Cadow. faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgal ciidamada maamulka Jubbaland ay ka sameeyeen gobolka Gado, waxaana howlgalkan la sheegay in lagu soo qabtay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab. sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland, howlgalkan oo ahaa mid gaar ah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Gado, waxaana ay soo bandhigeen 2 qof oo ay sheegeen inay xiriir iyo wada shaqayn dhow la lahaayeen al-shabaab. dadka la soo qabtay saraakiishu waxa ay sheegeen in maalmihii dambe ay ahaayeen bartilmaameed, isla markaana ay ku guda jireen sidii ay u soo qaban lahaayeen, kadibna ciidamada ay u suurtagashay. raggan ayaa saraakiishu waxa ay sheegeen in maxkamad la soo taagi doono isla markaana lagu soo oogi doono dacwadaha la xiriira ka mid ahaanshiyaha al-shabaab iyo inay ka qayb qaateen weeraro iskugu jira kuwa toos ah iyo qaraxyo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Gado. ciidamada maamulka Jubbaland ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgallo waxa ay ka sameynayeen deegaano ka tirsan gobolka Gado, waxaana howlgalladii ugu dambeeyay saraakiisha nabad sugidda ee Jubbaland oo la hadashay warbaahinta ay sheegeen inay soo qabteen xubno ka tirsan al-shabaab oo qaarkoodba ay soo bandhigeen. Axmed mahadsanid. dowladda Kenya ayaa la sheegay inay ciidamo ku soo daabulayso deegaanada Jubbooyinka. magaalada Kismaayo waxaa haatan ka socdo qabanqaabo ku aadan doorashada maamulkaas oo la filayo in ay dhacdo 22 bishan oo maalmo qura ay naga xigto, iyadoo ay soo tarayaan walaaca laga qabo doorashadaas kadib markii dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay tilmaamayaan in aysan doorashadaas u dhicin amaba doorashadii guddoonka baarlamaanka ay ahayd mid hal dhinac. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo iyaguna ku sugan Jubbooyinka ayaa waxa ay sheegeen in doorashadaas ay u dhacday xor iyo xalaal. lama oga doorashada la filayo ee madaxtinimada ka dhacayso Jubbaland sida ay noqon doonto. waxaa maalmihii la soo dhaafay aad loo hadalhayay in loolan uu halkaas ku jiro oo u dhaxeeyo ciidamada Kenya iyo kuwa Ethiopia, iyadoo la sheegayo in amniga doorashooyinka iyo garoonka diyaaradaha ciidamo Ethiopian ah la rabo in loo gacan geliyo, halka Kenya ay ka biyo diidan tahay. Cornel Aadan Rufle oo ahaa sarkaal hore ayaa dowladda Kenya sheegay in ay ciidamo hor leh ku soo daabulayso Jubbooyinka, waa siduu hadalka u dhigay. كالله gobolada Jubba oo dawladda Kenya iyo dad ay wata ay ku soo duuleen duulaankiina hadda la labanlaabo ciidamada dalka Kenya looga soo daabulayo si dalkeena loo dhaco shacabka Soomaaliyeed dibad iyo gudo aan ugu baaqayo inay difaacadaan iyo sharafkooda baaqan diro dawladda Soomaaliyeed si guud qaranka Soomaaliyeed wakiilkooda waxay la tahay inay aadan tahay iyaduna dariiqadii aragtideeda aan kaga kabayo markaan ku hormaro shacabka Soomaaliyeed waxaan doonayaa inaan u sheego dibad iyo gudaba gobolada Jubba waa lagu soo duulay 48 saac oo aan soo dhaafnay ciidamada waxay ka dagayaan magaalada Kismaayo
meesha la yidhaha raaskambooni, meesha la yidhaaha dhobley, amuume, ilaa xuduudda iyo xeebta inta udhaxaysa dhobley ilaa raaskambooni ilaa kismaayo, xuduudda iyo xeebta waxaa ka degaya ciidamo kenyaana, kuwaas oo isugu jira ciidanka badda oo maraakiibtiisii wato, ciidanka cirka oo diyaaradihiisii iyo qalabkiisii iyo isgaarsiintiisii wato, iyo ciidanka dhulka. waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed ha baraarugsanaadeenno oo arrintaas ha ku baraarugsanaadeenno. waxaa kalan doonayaa masiibada waktiga ayaa macalinaha inaan dib u jalleeco arrinta kenya waxa ay ka dhalatay 11 sano haddoo kale 2008 bishii Agoosto 25 ururadii burcadiineedyada ah ay ka mid ahaayeen ururkii argagixisada maxaakiimta iyo ururka hadda al-shabaab la yidhaahday gumaadka shacabka soomaaliyeed baa waxay sareereen magaalada Kismaayo ama gobolada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo aan kornel aadan rufle sarkaal hore ayuu kaasi ahaa. halkaad warkaas kala socotaan waa dalsan muqdisho. madaxweynihii hore ee dalka suudaan cumar xasan al-bashiir ayaa isniintii shalay kasoo hormuuqday maxkamadda si uu u wajaho eedo dhinaca musuqa 4 bilood kadib markii milatariga dalkaas ay xukunka xooga uga rideen. bashiir oo dalkaas xukumayay muddo 30 sannadood ayaa ku eedeysan inuu si sharci darro ah u haystay lacago qalaad iyo in uu hadiyado ku haystay waa ku helay si sharci darro ah. sida uu sheegay dambi baare maxkamadda ka hor hadlay al-bashiir ayaa u sheegay baarayaasha in malaayiin dollar oo kaash ah uu ka helay dalka boqortooyada Sacuudiga. qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa la dhicin maxkamadaynta al-bashiir iyagoo ku tilmaamay mid aan ku filnayn oo soo daahday. maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ICJ ayaa ku eedeysay al-bashiir dambiyo dagaal kuwa ka dhan ah bini'aadanimada iyo xasuuq uu ka geystay gobolka Darfur. bishii May ayaa sidoo kale maxkamad ku taalla dalka Suudaan la horkeenay al-bashiir.